waa munaasabad lagu abaalmarinayay shaqaalihii ugu wanaagsanaa ee hay-adda waddaniga ee sidaafo ee sanadkii dhammaaday 2024 ayaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana madashani ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sarreeyay hay-adda sidaafo shaqaalaha hay-adda sidaafo ka kala yimid gobolada dalka ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaana ka warbixiyay xalfaddan agaasimaha guud ee hay-adda waddaniga ee sidaafo Cabdisalaan Ibraahim Ducaale iyo Axmed Maxamed Diiriye Raamaale oo kamid ah mas'uuliyiinta hay'adda waddaniga ee sidaafo inaynu caawa ka hadalno guulihii inoo qabsoomay 2024 sidaafo guulihii ay shaqaalihii gaarsiiyeen inaynu caawa iyadana halkan ugu dabaaldegno waayo shaqaalaha sidaafo ayaga in awoodsiiyay inay sidaafo guul gaadho oo caawa halka la isugu yimaado la kaftamo oo waxa weeyaan wixii 2024 soo maray laga sheekeeyo qodobka kale ee isugu nimcaa waxa weeye inay isku doonsiino shaqaalihii ugu wanaagsanaa sanadka 2024 ama heer gobol ha noqdo ama ka ugu guud ha noqdo xafladahan ama maamuuska noocan oo kale ah maaha markii ugu horreysay 2017 bay sidaafo bilowday waxaan maranayaa inuu sanadkii 9aad yahay sanad walba runtii shaqaalo ayaa ka soo qayb qaadanayay oo imikana weli jooga qaar badanna runtii sida halkan laga xusay waxay joogaan goobo ama dowladda Soomaaliland ka shaqeeyaan oo madax sare ka yihiin qaar madaxweynayaal isu sharaxeen qaar UN ka shaqeeyaan qaar dalka dibaddiisa joogaan qaarba meel bay joogaan runtii waa meel u furan mar kastaba dhalinyarada inay ku tababarato hadhowna ay u gudubto meelo anfacaya mustaqbalkooda sidaad ogtihiin hay'adda waddaniga sidaafo waxay ka shaqeysaa 5 gobol ilaa 4 gobol oo Soomaaliland marka shaqaaluhu waxay kala joogaan gobollo kala duwan iyo meelo kala duwan inay isku yimaadaan oo ay is arkaan oo ay ka wada sheekaystaan guulihii waxqabadadii caqabadihii iyo lessons learned ama waxyaalihii ay ka barteen intii ay shaqada wadeen si hadhow tole wax badan uga qabato shaqooyinka ay bulshada iyo ummadda iyo xafiiska way u hayaan labada ujeedo ayaa ugu weyn inta aynu ka leenahay abaalmarinaha ama kulan sanadeedka hay'adda waddaniga sidaafo sidaynu wada ognahay waxa ay mar walba u taagan tahay inay kaalin ay ka qaadato inay wax ka buuxiso ama ay kor u qaado arrimaha bulshada hadday noqoto in kor loo qaado habnololeedka bulshada hadday noqoto in wax laga qabto baahiyaha biyaha caafimaadka waxbarashada iyo dimuqraadiyadda sanadkii 2024 waxaanu gaarnay bulsho ku dhow 9,000 oo ruux oo loo qabtay adeegyo kala duwan oo ay ka mid yihiin tababarada xirfadaha gacanta iyadoo waliba aynu u qaybinay agabkii ka caawinayay inay shaqaaluhu si helaan marka ay tababarka qaataan taageerada beeralayda waddanka qaybo ka mid ah iyadoo loo qaybinayay agab laga caawinayay biyo qabantikooda wax ka qabashada ama caawinta ardayda iskuulada iyadoo loo qaybinayay agab waxbarasho tababar joogtaan la siinayay ardayda iskuulada hirgelinta tartan aqooneedyo loo qabanayay iskuulada waddanka taageerada dhalinyarta dhanka sportska si loo xoojiyo isdhexgalkooda iyo nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada kor u qaadida wacyiga bulshada iyadoo la isticmaalayo tababaro joogto ah madallo ama forums ay ku doodaan fikradooda iyo aragtoodana ay isku wadaagsadaan wacyigelinada bulshada oo ku saabsanaa siday uga qayb qaadanayeen doorashooyinka waddanka iyo in laga hortago colaadaha iyo isku dhacyada bulshada intaasi waa si kooban waxyaalihii aynu gaarnay guulihii aynu gaarnay 2024 waxaan ku darayaa hay'adda waddaniga waxa u soo tagashay sanadkii 2024 in 3 shir oo caalami ah ay ku matasho ummadda Soomaalida oo dhan oo markii koowaad laga qayb galay dadaaladii 2023 waxay naga caawiyay 13 deeq bixiyayaal oo isugu jira wakaalado caalami ah dawlado qaramada midoobay iyo hay'ado caalami ah ugu dambeyntii waxaan u mahadnaqayaa shaqaalaha hay'adda waddaniga sidaafo oo runtii sameeyay nafaqnimo aad u weyn
iyadoo aan ognahay in culaysyo badan oo caalamiya iyo culaysyo aan waddankeena gaar la ahayn ay jireen. insha Allah waxaan rajaynayaa sanadkan inaan ku geli doono inaga oo ka firfircoon sidii hore. dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah shaqaalaha kala duwan ee ka soo qayb galay munaasabadani lagu abaalmarinayay shaqaalihii ugu wanaagsanaa sanadkii dhammaaday 2024. ka gobol ahaan waxaan odhan karaa qodobka koowaad oo ah in kor loo qaado wacyiga bulshada oo ugu muhiimsan ah waxyaabaha wax laga qabto. waxaan aaminsanahay numbariska noo record garaysan in ka badan inaynu gaadhnay oo aynu odhan karno 10 kun bay noqon karaan, laakiin si specific waxaan sheegi karaa in ka badan 500 qof loo sameeyay wacyigelin kala duwan iyadoo kor loogu qaadayo aqoontooda ama wacyiga ay u leeyihiin inay la dagaalami karaan tacadiyada ka hor yimaada, sidoo kale u doodi karaan xuquuqahooda, sidoo kale ay heli karaan xogaha ku saabsan in maxaanadanay la helo servisyada ay ka mid yihiin justice-ka iyo waxyaabahaas iyo xuquuqahooda kala duwan si guud. sanadkii tagay wax badan baa gobol ahaan gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceerigaabo wax badan baa noo qabsoomay. waxyaabihii haddaan wax ka tilmaamo waxaa ka mid ah Soydaafo iyo wasaaradda kalluumaysiga iyo horumarinta maxaan ku raadayay khayraadka badda ama horumarinta xeebaha Somaliland iyo hay'adda FAO oo maalgelinaysa. waxa ay 100 qoys oo ku nool magaalo xeebeedda Maydh waxa loo qaybiyay waliba kontonkii hore waxa loo qaybiyay qalabkii kalluumaysiga oo kala duwan. mashruucii aan ka shaqeynay saddexda gobol oo in fact ka socday awdal iyo togdheer iyo Hargeysa. mashruucu waxa de magaciisu ahaa Islamic Trauma Healing ama waxa lagu daweynayay adigu diinteena dadkan buufisku galo markaan iga sharaxo ama de walaahow ku dhaco ama traumada ku dhacdo marka xagga dagaalada laga eego de qof la dilay, qof aabihii lagu hordilay ama gabadh la kubsaday ama mushkiladaha noocaas markay dhacaan dadku walwal iyo waxa ku dhacday mushkilado badan baa ku dhaca. marka xanuunkii nooca ahaa waxa aan kala shaqeynay Soydaafo iyo jaamacadda Burco in la isku dayo bal in lagu qabciyo qofka diinta in lagu daweeyo. haddii aan warbixin kooban idinka siiyo gobolka Maroodijeex gaar ahaan mashruuca ka socda baligubadla iyo salaxday barnaamijku wuxuu ku saleysan yahay mashruucu sugidda cuntada, taasoo loogu talagalay in dadka loo sameeyo beero iyo biyo ay kula soo baxaan cunto iyagu ay leeyihiin kana maarmaan waxyaalaha soo dega. mashruucan waxaa barbar socday tababaro badan oo ka mid yihiin soil and water conservation oo dabca carrada sida loo nafaqeeyo, biyaha roobka sida looga faa'iideysto, kuwa balliga iyo kuwa bannaanka maraba. waxaa kaloo la sameeyay tababaro ku saabsan yihiin nutrition sensitive agriculture oo loogu talagalay dhammaan iskaashatooyinka maaragtay labada degmo. waxaanu gaadhnay target beneficiary-ga 150 iskaashato haddaanan ka badin inaan tababarada siino joogtaa. waxaa kaloo sameynay visit exposures loogu talagalay establishment cooperative and network oo Hargeysa lagu qabtay. gabagabadina waxaa halkaasi shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey shaqaalihii ugu wanaagsanaa hay'adda Soydaafo sanadkii dhammaaday. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, telefishinka Saab, Burco.